بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد أو إذن له ميل كستوات جوكتان وديقى داوان دونتان وحان إذن له هي سلام الله عليكم ما أنتو سبتمبر أي تهي طبانكا سنة اللبادة كن يلا باتنكا جمعة وناكسن waxaan jeclaystay inaan halkan ku record gareeyo clip aan ugu talagalay in ay noqoto taxanahaasoon uga dan leeyahay mashaakilaad fara badan iyo dhibab badan iyo culays badan stress badan oo aan arkayo ii muuqanaya aniguba aan qayb ka ahay cidda uu taabanayo ayaan doonayaa in aan maxaa la dhihi jiray sidaanu isaga dulqaadi lahayn sidaanu u wada wadaagi lahayn aqoonteedii kadibna aanu coping mechanism dhibaatooyinkaas ina haysta sidaanu isaga dulqaadi lahayn ama awood aan u yeelan lahayn in aanu yeelano awood aanu isaga dhicinno ayaan jeclaystay inaan bilaabo maxaa yeelay noloshan adduunyadu waa nolol horta sideedaba shiddo iyo ka samaysan dhib marka walwal iyo walbahaar cudurro aan dhammaanayn dhibaato badan iyo safarin badan baa adduunyada tan laga kulmaya maadaama joogiddeeda iyo nolosheeduba ay tahay wax alla subxaana wa tacaalaana uu inoo sheegay nebigeenna calayhi salaatu wasalaamna uu inoogu sheegay sunantiisa marka dhibaatooyinka runtii maanta caalamka hareeyey waxaa ka mid ah mushkiladan caalamka dhan haysata ee covid-19 ah ee bandemiga ah ee galoob caalamka geeska gees waddan uu ka tegayba ay aada u yar tahay kollay wadamada soomaaliya ay ka mid ka tahay waxaa dhici karaysa inaanu ahayn cabsida ugu ballaaran ee maanta haysata iyaga laakiinse caalamka intiisa kale siba waddanka anigu aan jooga ee maraykanka ah waxa ay ka mid tahay waxa maanta ugu ba-an ee runtii dadka haysta dowlad ahaan iyo dadweynaha ahaan oo dad 200,000 ku dhowaad ah uu galfaday oo uu laayay dad tiro badanna uu cudurka ku dhacay oo aan la garanayn sebtembartan iyo oktoobarta iyo foolka inagu soo foolka leh waxaan ka hadlayaa waa xilliga qaboobaha inagu soo foolka leh sida xaal ku noqon doona aan la garanayn cabsidaasi way jirtaa marka covid-19 kaas bandemiga ah waa wax jira cudurro kale oo inaga inoo dheero soomaali waxaa jira oo joogtaba inoo haya oo ciidina hadda aysan warba u hayn oo ina dul taagan dagaal iyo colaad aan dhammaanayn ayaa muddo 10 sano 30 40 ilaa iyo ka badan ina dul taagnayd gumaysi ina haystay muddo sakicintiisii iyo dhibaatooyin badan oo kala kulannay iyo nabadgeliyadii oo iyana runtii nagu yaraatay sanadihii ugu dambeeyey oo ay ilaa iyo maantaba ay dadka iyagu ay ka walwalayaan heshiis ma dhici doonaa 5 qof 6 qof oo meel isugu timid ma heshiin doonaan maxaa caaqibada ka dhalan doonta aynu leenahay 30 sano ka gadaal taasi waa musiibo runtii soomaalida joogta gudihii iyo kuwa dibadda jooga ina haysta oo aan dhammaanayn marka waxaan doonayaa oo kale gaajo ba-an iyo faqri ba-an iyo nafaqa darro ba-an oo iyana runtii dadka iyaga haysata meel kastoo aynu joogno gaar ahaan kuwii waddanka joogay maadaama dadkii waddanka joogay aysan haysan dowlad iyo shaqo meel ay ka shaqeeyaan oo ay unemploymentiga dadka aanan shaqayn ee maanta aan shaqo inta u kala lahaan paycheck aanan helayn ay yar tahay dadka helaya oo ay badan yihiin dadka aan waxba maanta quutul maalmeedkooda meesha ay ka soo dhacsan lahaayeen marka bakhdintaasi iyo stresska joogtada ah dhibaatada inagu hayo ayaan runtii aan doonayaa in aanu wada darisno xaggee naga gaarayaan maxay inoo gaarayaan sidee baanu maxaan ku rahdaa uga overcome garan karaynaa dhibaatooyinka ina haysta waxay ka imaanayaan kuwa caalamka dhan global kuwo waxay nooga imaanayaan qaaradda aanu degannahay qaaradeenna ah kuwo waxay nooga imaanayaan qaaradda inala dariska ah ee wadamada golfiga ah ee wadamada qaliishka carab iyo afrikada bari qaar waxay nooga imaanayaan regionka aynu ku nool nahay qaarna waddankii aynu ku nool nahay bay nooga imaan karayaan ilaa iyo tuulada aynu degannahay bay
dhibaatooyinka colaadaha iyo musiibooyinka inooga imaan karayaan. kuwo waxaa jira hore inoo soo maray oo raadkoodii weli inaad dul taagan yahay. kuwo waxaa jira maantay dhibaatooyin ina haysta oo weli maxaan ku rahdaa mushkilooyinkooda horay inoola sii socon doona, iyo baqdino badan oo inagu soo wajahan oo aynu ka walwalayno maadaama aynan garanayn berito iyo bisha dambe iyo sanada dambe waxay noqon doonto. dhibaatooyin badan oo xaggaas inaga haystana waa ay jiraan. marka warka muhiimka ah aan doonayo waxay tahay aan doonayo coping mechanismka runta dadkii aan doonayo inaan la wadaago waxay tahay, horta marka hore meesha aynu degannahay waa daaru dunya, waa daar ku meel gaara, waa adduunyo, waa daar oo mamara ah oo la marayo oo laga sii gudbayo aan lagu waarayn sida diintu inoo sheegtay. taa mar kasta inaynu xasuusanno weeyaan. maxaa yeelay dhib yar haddii una gaaro dhibaatooyin badan baa ina haysta. soomaaliduna waxaanu nahay, haddaanu soomaali nahay, dadka adduunka ugu adkaysiga badan. cid inala mid ah oo inaga adkaysi badan way yar tahay caalamka. dhibaatooyinka ina soo maray ama kuwa maantaba ina haysta iyo sida aanu uga gudbayno iyo sida aanu weliba ugu heegana ka nahay in aan uga gudubno, runtii waxaanu nahay the most resilient community baanu nahay ee caalamka ee aadane ama Allah subxaanahu wa tacaala uu abuuraba. marka dunidan aynu ku noolnahay waa daar mamara ah sida nabigeena xadiiskii inoogu sheegay, ee qof geed harsaday, qorax ka harsaday, dabadeedna ka caraabay bay ka dhigan tahay dunidatan sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay. kelmadda dunyada addunya in Arabic waxay noqonaysaa waa addunya, the closer life, noloshan soke, noloshan dhow, noloshan soke, ama addunya ama tii liidataba waa tii liidatay. oo marka maxay tahay macnuhu? waxaa jirta nolol dambe oo waasica, nolol dambe oo sarraysa, nolol dambe oo waaraysa ee adduunkan loogu talagalay in loo shaqaysto. baanu u diyaar garoobaynaa intii Allah subxaanahu wa tacaala u qadarana way helaysaa aakhiradaasi nolol waasica oo barwaaqi iyo bashbash iyo baraare. maxaa yeelay noloshatan Allah subxaanahu wa tacaala siduu inoogu sheegay suuradda laqad khalaqna al-insana fi kabad, suuratu balad aayadda 4. laqad khalaqna al-insana fi kabad, fi mashaqqa. لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة. تعب يشدو أيا نولشة لسو أبو ربا أو ما أهين مركدي هربا نلول برواقيين لغو راحيستو لغو طلقلي. maxay tahayse nolosha dambe ee aakhirada ayaa midaas wayna ka sheekeen doona waxay tahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskan wuxuu inoogu sheegayaa in noloshan dunida ay tahayba sijnul mu'min wa jannatul kaafir. qofka mu'minka ah inay u tahay xabsi oo maalmo yar oo uu joogayo oo uu dhiboonayo oo waxyaabo badan colaado iyo wax kastaba qabsan karayaan, oo laakiin xabsi uu ku jiro ka dhigan tahay nimco kasta uu haysto. qofka muslimka ah barwaaqo kasta uu ku jiro waxay ka dhigan tahay oo xabsi ku jira. marka waxaanu doonaynaa in aynu diintayada iyo dhaqankayaga iyo waxyaalaha runtii protective behavior-ka ahee Allah subxaanahu wa tacaala na siiyey inagu jira ee capacity-ga in aynu nolosha la qabsanno coping mechanism-keena ee kore u kacaan ayaan runtii doonayaa inaan kore u qaado. dad badan baa dhiboonaya, dad badan baa maantay aanan garanayn geed hoostii ku ooyaya, dad badan baa sariirta hoosteed ku ooyaya, gabdho badan baa ciilaysan, rag badan baa ooyaya, ilmo badan baa maxaan ku rahdaa xaalkoodu uu meel xun ku sugan yahay. marka waxaan doonayaa in aynu inagu wax isu sheegno, aynu issamarsiino, aynu isu shaqayno. waxa kan waa wax laga baxayo weeyaan. maxaa yeelay culays kasta oo ina soo mara fudayd baa ka dambeeya. inna maca alcusri yusrun, inna maca alcusri yusrun. markaad fiirisay sida aayaadku ama marka la macnaynayo oo cusrigaasi oo nakirada iyo maxaan ku rahaa yusran yusran, hadda waxaa leeyahay mid baa cusriga mid keliya ah, labaa yusriga ah. marka taasi way kala badan yihiin. culaysku way dhici karaysa inuu nagu daba dheeraaday, way dhici karaysa inuu nagu daba dheeraaday. Soomaali haddaanu nahay runtii culayska ina haysta wuu nagu daba dheeraaday.
hanagu daba dheeraa laakiin waxaan isu sheegaynaa in fudayd iyo barwaaqo ay dambayso in laga bixi doono nolosha tan inaysan baahayn meeshii aanu barwaaqo iyo aanu maxaan kula ugu talagalnay in lagu nagaado nolosha dambe ee aakhirada ah weeyaan meesha raaxa taalo ee la doonaya in loo saciyo allah subxaanahu watacaala suurat alxijr aayadda 48 waa suuradda 15 aayadda 48 allah subxaanahu watacaala markuu ka hadlayo qiyaamaha iyo jannada iyo barwaaqada taalla wuxuu inoo sheegayaa laa yamasuhum fiiha nasabun wamaa hum minha bimukhrijiin markaad fiirisa aayaadkaas oo kale in qofka markuu jannada galo marka janno ma joogida annagu dhib wayna taabanaya culays bayna taabanaya waxyaabo badan baa ina gaaraya laakiin halka barwaaqadu taallo oo aysan qodaxna ku mudayn daalna aanu ku taabanayn aadan murugoonayn cidina aysan kugu xadgudbayn waa maalinta qiyaamo ee jannada marka aynu galno allah subxaana wa tacaala haynoo gartee waa meeshaasi meesha aanu nasab culays daal rafaad aanu nuguba dhacayn aana nalagaba saarayno aanu weligeenna meeshaas aanu khaalid ku nahay aanu ku daa'imin doono hadduu alla idmo waxaa kaloo jirta in ayana allah subxaana wa tacaala uu inoo sheegay mar uu ka hadlayay jannada dadka galaa sida ay tarankiila u yihiin ay u degan yihiin ay meeshaas ugu raaxaysanayaan aayadda 25 iyo 26 ee suuratul waaqica haddaad fiirisid sida culummada aanu ka maqalnay markasta marka ay noo sheegayaan aayaadkaas oo kale waxay leeyihiin laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'fiiman aayaddaas bal daawo ama fiiri ama maxaan ku dhegayso dib u milcso laa yasmacuuna maqli mayaan fiiha marka ay ku jiraan jannada lagwan wax hadal lagwi ah hadal xun wax dhiba xan been bahdil iyo wax kasta oo qofka maxaan ku rahdaa wax u geysan lahaa dad badan baa la bahdilaa dad badan baa la takooraa dad badan baa ciilaysan dad badan baa maxaan ku rahdaa ooyaya gabar baan shalay dhegaysanaya facebook oo ka hadlaysa gabar kale waxaa takoor lagu sameeyey marka waxaas aad aragtay dad qarniyaal intaa ku jira markaaynu ka hadlayno globally dadkii oo dhan waa wada dhiban yihiin ayagoo ummadii oo dhan wada dhiban tahay ayaa haddana lakab hoos loo siidaa degayaa dadka qaarkood ee si gaar ah u dhibaysan yihiin dad baabaa markasta ooya oo ciilaysan marka sidee wax looga qaban karaya walaalayaal waxaad ogaataan qof waliba u sacyi noloshan dambe ee allah subxaana wa tacaala ina siiyey in aad ka wardhowrtaa ee aad maxaa la dhihi jiray u sugataa maxaa yeele waa meeshaasi meesha allah subxaana wa tacaala uu ku leeyahay laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'fiiman dembi iyo qaylo iyo wax dembeynay xataa ma maqlayaan marka waxaan idinku dhaafayaa waxay tahay noloshu waa imtixaan nolosha tan aynu ku jirnaa waa imtixaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la weydiiyey rasuulka allow ayu ducaa afdal duco haddaynu allah subxaana wa tacaala qofkeenna waa wada dhibannahay haddaana duco allah subxaana wa tacaala aanu baryayno ducadeeba ugu wanaagsan markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sali allaah alcafwa walcaafiya fi dunya waalaakhira war allah subxaana wa tacaala waxaa weydiisataan cafin iyo caafimaad weydiiso in allah subxaana wa tacaala uu ku cafiyo maxaa yeelay innaga xitaa dhibaataysan innaga xitaa ooyeyna innaga xitaa dulman ee stresska ina haysto xitaa waxaa dhici karaysa inay innaguna aanu xitaa dhaalimiin nahay madluumiinna aan noqon karayno markasta inaanu cafi allah subxaana wa tacaala aanu weydiisanno adduunye iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala uu caafimaadna ina siiyo kadib haddana maalin kaleu ninka yimid wuxuu yidhi ayu ducaa wa afdal qaala markaa wuxuu yidhi sali allaah alcafwa walcaafiya fi dunya walaakhira faidaa uctiita alcaafiya fi dunya walaakhira faqad aflaxt war haddii adduunyada tan lagugu siiyo cafi iyo caafimaad waad aflaxday qof yahow hadalka badan intaad iska daysid alla subxaana wa tacaala weydiiso cafwi iyo caafimaad
marka hadduu alla idmo waxaan doonayaa inta aniga ila quman ama inta anigu marka awoodeyda karaankayga ah in aan soo qaato kalimaad iyo dhibab iyo stress iyo trauma waxyaabo badan oon arkayo culaysyo badan oo dhacaya sanadihii ugu dambeeyay oo kale inta trauma aynu isku samaynay trauma waxa weeyaan waa dhaawac maskaxiyan iyo dhaawac physical aan isku samaynay dadka iyaga kaba soo qaad 90 iyo wixii ka dambeeyay haddaad ka soo bilaawdid inta qof iyo dad iyo dhaawac aan isu geysanay traumadii marka aanu samaynay 80meeyadii 90meeyadii baa dadka iyaga ka muuqanaysa qofka ka fog wada arkaysa dadkii oo maxaan ku raahdaa banaanka ay taalo laakiin ismooda inay ayagu yihiin kuwii wax saxayay marka insha Allah waynu ka hadli doonaa wixii talada ahna waa ka geysan doonaa hadduu alla idmana ilaaha nagu anfaco wixii marka inala gudbaanaada وصلى الله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته